السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سو dhawaada meel walba joogtiin channelka daawanaysiin waa channelkii Dr. Saddam Hussein maanta waxaan idin wadaa barnaamij oo maaragtay caafimaad ah ku saabsan fursadaha ugu fiican lagu qaadi karo uurka mataanaha gabadha hadii ay raadinayso uur mataana sidee bay ku qaadi kartaa uurkani ama ay ku heli kartaa uurkani fursadahani way kala duwan yihiin waxyaalo sharaxaad badan baan ka bixin doonaa maaragtay sida aad uurka aad ku qaadi lahayd sidoo kale waxaan la wadaagayaa uurkani mataanaha sidoo ku imaado noocyadu yahay uurkani iyo maaragtay siyaabaha iyo dhaqamada ilmahani ay kala leeyihiin markii ay maaragtay dhashtaan hadii uuro usuuga mataano usuuga hadii yihiin ay mataano oo maaragtay aan usuugeenba hadii yihiin marka ila socdo fadlan hayloowina channelka inaad subscribe like aad saartiin hadana aan ugu dagalna barnaamijka hortiina waxa yaala waxa waaye gabadha makaankeeda ama minka ama maaragtay halka ay uurka ku abuurmo iyo maaragtay xibnii hoos oo gabadho idil loo yaqaano reproductive systemkani waxa uu gaar ahaan waxa arkaysiin waxa waaye uteruska ogxaansidaha maaragtay tuubooyinka soo qaado ogxaanta sideedba halkani bay ka dhalataa ogxaanta markay halkani ay ka soo abuuranto way soo bixaysaa waxay soo maraysaa tuubooyinkani markay soo gasho ogxaanta waxay sugaysaa shahwo oo ka imaaday ama meena ka imaaday dhanka maaragtay banaanka ah oo yaqaano ama spamka waa shahwada ninka ama biyaha ninka ragga ah markay ay soo gasho gudaha spamkani soo socdo halkani uu la kulmayaa shahwadii gabadha ama biyihii gabadha iyo biyihii ninka ragga halka bay ku kulmayaan halkani waxa waaye fallopian tube-ka marka ay kulmaan maaragtay ay bacriminta ay dhacdo sida kale loo yaqaano bacriminta ama ay isu imaaditaanka biyaha ninka ragga iyo biyaha gabadha markay isu imaadaan waxa ka dhalanaya uurka haduu dhasho ama waxa ka abuurmaayo ilmahani halkani ka abuurmaayo meeshan kuma abuurmayaan hadii halkani ay ku abuurmaan waa qaladaad la socdo uurka oo loo yaqaano ectopic pregnancy laakiin taa mar kale baan sharxi doonaa halka hadda waxaan rabo waxa waaye uurka badi oo uurka caadiga ah sida uu ku dhasho waa sidani uu ku bilowdo ama mataanaha sida ay ku bilowdaan ama uurka caadiga ah sida ay ku bilowdaan ayaa sidana bacrimintani markay dhacdo waxaan waxa loo yaqaanaa zygote-kani soo socdo wuxuu imaanayaa waxa waaye zygote-ka markii lagu leeyahay waxa waaye sidiisba waa biyihii iyo labada biyood oo isu imaaday ayaa zygote-ka loo yaqaanaa zygote-kani markuu uu soo baxay halkan buu ka soo dhaqaaqay wuxuu imaanayaa minki buu soo galaa darbiga minki buu isku dhajinayaa oo halkan ah halkani isku dhajintan maaragtay uu zygote-kani isku dhajinayaa halkani darbiga minka ah ayaa loo yaqaanaa process-kani waxa loo yaqaanaa kani waxa loo yaqaanaa fertilizationka kana waxa loo yaqaanaa implantationka waxa waaye zygote-kan markuu uu bacrimintii dhacday bacriminta waxa waaye fertilizationka bacriminta markii dhacday zygote-kani sidoo u soo socdo wuxuu imaanayaa halkani darbigii oo minka buu isku dhajinaa darbiga minka markuu isku dhajiyo waxa loo yaqaanaa implantation baa loo yaqaanaa marka kadib waxa dhacay waxa waaye cunugii in uu halkani uu ku abuurmo uu ku weynaado oo sidii uu u sii socdo marka xaaladda mataanaha sidee bay ku dhacaysaa marka gabadhii hadii mataano uurkii mataanaha ay dhacdo uurkani mataanaha gabadha markay ay qaado uurka mataanaha sidiis wuxuu u kala baxaa laba nooc buu u kala baxaa labadani nooc waxa la kala yiraahdaa monozygotic twin iyo dizygotic twin labadani nooc waa laba uur oo mataana ah oo kala duwan meel ay iskaga soo dhow yihiinna ma lahan monozygotic twin-kani waxaa loo yaqaanaa badi sida kale waxaa loo yaqaanaa identical twin baa loo yaqaanaa dizygotic twin-kana waxaa loo yaqaanaa fraternal twin marka labadani nooc oo mataanaha ah
gabadha waa inaad ogaatid marka aad mataana ilmo mataana aad sidid waa inaad ogaatid uurka mataanaha aad wadid ma dizygotic twin ba mise monozygotic twin ama identical twin ilmaha isu eg oo ma aragtay identical waxa waa ilmaha isu eg uurka mataanaha isu eg ama ilmo kala duwan ayaad halkaasi ku sidaa aan u gudagalno marka fraternal twinka wuxuu yahay fraternal twinka wuxuu yahay aan u gudagalno fraternal twinka haddaan u gudagalno ama uurka mataanaha loo yaqaano fraternal twinka nooca loo yaqaano fraternal twinka waxa waaye fraternal twinka waqtigani gabadha waxay soo daynaysaa laba ogxaan oo kala duwan oo isku xigxiga labadani ogxaan waxa bacriminaya laba ma aragtay laba ogxaan bay gabadha soo daynaysaa waxaana bacriminaya laba ma aragtay sida loo yaqaano laba shahwo ama laba biyo oo mina ayaa kala bacriminayso ogxaantani tani waxa waaye biyo ragga kana waxa waaye laba ogxaan oo gabadha soo daysay ogxaantani waxa bacriminaya laba oo ma aragtay biyo ama mina dhanka ninka ka timaadi marka fraternal twinska sidoo waxa waaye waxa ay ku dhashaan ama waxa ay ka bilowdaan labadani ogxaan kadib laba biyo oo kala duwan ba bacriminayso ogxaantani midda in aad ogaatid lagaaga baahan yahay ayaa ah ilmahani loo yaqaano ama mataanahani loo noocgani ah oo fraternal twinka loo yaqaano badi isuma eko ma aragtay mana noqon karaan hal gender ama hal jinsiyad oo ma aragtay gabar iyo gabar ah ama wiil iyo wiil ah ma noqon karaan ilmahani badi waxay ku dhashaan wiil iyo gabar sidaas waa inaad ogaatid sidoo kale uurkani sidiisba oo fraternal twinka mataanahani fraternal twinka loo yaqaano kunkiiba 10 in laga hela ayaa dhici karto oo noocgan oo fraternal twinka ah hooyooyinka markay dhalayaan oo mataanooyinka ay helaan waxa dhici karta in kunkiiba 10 cunug ay ka dhalato oo fraternal twin ah oo mataana ah haddii aan taas ka soo tagno sidoo kale waxaad ogaataa maamooyinkani oo ma aragtay fraternal twinka oo sidoodba da'doodii maamooyinka fraternal twinka sida waa inaad ogaatid maamooyinkani badi da'doodii way ka weyn tahay 35 sano taasi waa midda koowaad labo waa inaad ogaatid maamooyinkani calaamad ahaan ama physically jir ahaan haddii aad ma aragtay aad describe garaysid oo aad dahdid waan describe garaynaya maamooyinkani ama faahfaahin yar nooca maamooyinkani ay u egyihiin aan ka bixinaya haddaan yiraahdo waxa waaye maamooyinkani badi waa maamooyin dheer jooggoodii waa maamooyin joog dheer ah waa taas midda koowaad sidoo kale maamooyinkani waa maamooyin culus oo hilib lah maamooyin culus waa sidoo kale waa inaad ogaatid maamooyinkani badi dhanka caadada haddaad u timaado oo ma aragtay maamooyinkan oo fraternal twinska mataanaha loo yaqaano fraternalka sido badi waa inaad ogaatid maamooyinkani xilliga caadada haddii ku dhacdo caadadoodii waqtiga caadadu way yar tahay caado yar bay leeyihiin oo ma aragtay oo dhiigga intuu ka socdo waqtigiisu yiri marka face shape appearance-ka oo maamooyinkani ayaa sidaan ah badina waxa keenayo sida loo yaqaano fraternal twinska ayaa ah maamooyinka nooc ahaan haddii la yiraahdo ama shape ahaan haddii la yiraahdo calaamadooyinkan bay leeyihiin hooyooyinka oo fraternal twinka badi qaado marka waxa kala ogaataa badi waqtigani oo twinka ah oo mataanaha maamooyinka markay ay helayaan waa inaad ogaatid hormoonka zaa'id loo soo daayo ayaa ah hormoonka loo yaqaano follicle stimulating hormonka follicle stimulating hormonkani sidiisbu wuxuu yahay waxaa laga soo daayaa qanjar ku yaalo maskaxda qanjarkani maskaxda ku yaalo waxa uu soo daynayaa laba hormoon oo u xil saaran caadada loo yaqaano follicle stimulating hormone iyo luteinizing hormonka waqtiga gabadha ay mataanaha ay tahay follicle stimulating hormonkani ayaa zaa'id loo soo daynaya midaasi waxaan rabaa inaad ogaatid gabadha haddii da'deeda ay ka weyn tahay 35 sano waxaa ku badanaya
soo daayitaanka follicle stimulating hormonka. hormoonkani loo yaqaano follicle stimulating hormonka, maadaama hormoonkani da'da buu uu ku soo ziyaadaa ama da'da gabadha intay sii weynaanayso hormoonkan uu ku sii badanayaa. waa inaad taas ogaato. dhanka kale haddaad fiirisid gabadha markay da'deeda ay yar tahay waxaa dhacaysa hormoonkani in uu ku yar yahay oo loo yaqaano follicle stimulating hormonka. haddii aan kasoo tagno marka taa noocgaasi waxaa waaye noocga loo yaqaano fraternal twinka ama mataanaha loo yaqaano fraternal twinka oo sidoodba ku dhashto maaragtay wiili gabar ku dhashto markay dhashtaanna maaragtay hooyadii ay helayso wiili gabar maaragtay kala duwan shape ahaan, qaab ahaan, dabeecad ahaan oo kala duwan, laakiin ilmihii waa ilmo isku waqti dhashtay oo mataana ah. aan u gudagalno marka monozygotic twinka ama waxa loo yaqaano identical twinska. marka identical twinska sidoodba waxay ay ka bilowdaan mataanaha isu eg waayo kuwan oo maaragtay identical twinska. identical twinskani sidoodba waxay ka bilowdaan kow waxa ay noqonahani haddii ay dhashaan waxaa waaye gabar iyo gabar la waaye ama wiil iyo wiil. hooyada waxay helaysaa hal gender oo hal nooc ah oo hal maaragtay hal sex ama hal gender oo hal nooc ah. maaragtay sida hooyada markay dhasho mataanahani waxay noqonayaan gabdho kali ama gabar ama wiilal kali. laba cunugoo wiilal bay helaysaa ama laba cunugoo gabdho ah ayay helaysaa. marka haddaa kasoo tagtid monozygotic twinkan ama identical twinkan sidiis wuxuu ka bilowdaa waxa loo yaqaano bacrimintii markay dhacdo ay maaragtay isu imaadaan maaragtay shahwadii ninka iyo gabadha biyaha markay isu imaadaan waxaa dhacaysa in fertilizationka markuu dhaco waxaa dhacayso zygotkan inuu isbedelo. waxaana loo yaqaano zygotka waxaa waaye markii fertilizationku dhaco kadib bacrimintii ay dhacdo waxaa dhacayso zygotkani inuu isbedelo oo maaragtay uu differentiation wax la dhaho uu galo. differentiationkani waxa uu keenayaa zygotkani in laba cunug inay ka dhashaan oo after maaragtay fertilizationka. labadana cunug waa maxay marka characteristic ay leeyihiin ama maaragtay shapeka ama noocyada ama waxa similaritiska ay leeyihiin waa maxay. kow ilmahani badi waxay noqdaan wiil oo hal jan oo maaragtay hooyadii inay hesho wiil ama inay hesho gabdho kaliya. mataana hadday dhasho ilmahani waxay noqonayaan wiilal ama gabdho oo kaliya ah. sidoo kale waa inaad ogaatid hooyada markii ilmahani maaragtay bacrimintani ay dhacdo ay maaragtay labadan cunug saans ku maaragtay ay noqdaan wiilal ama gabdho placenterkoodii hal buu noqonayaa badi ma noqonayo placenter kala nooca ama maaragtay meesha nutritionka ay ka helayaan. placenterka waxaa waaye hooyada markay ay dhasho cunuga laga soo saaro waxaa jirta dhaqaatiirtu waxay u yaqaanaan placenterka waxaa waaye wax hooyada laga soo saaro oo cunuga nafaqada siinaya xilliga uurka dhiigga iyo maaragtay meesha uu kala marayaan oo idil waayo placenterka. xubintaasi baa loo yaqaanaa placenterka. ilmahani marka badi way isu ekaanayaan. sidoo kale hiddiwadahoodii hal buu noqonayaa. hiddiwadaha waxaa waaye chromosomka iyo DNA-ga ilmahan oo idil hal buu noqonayaa. haddii gabdho yihiin way isu ekaanayaan weji ahaan, qaab ahaan, sidoo kale waxaa la yiraahdo maaragtay timaha taa qosolka dhaqan ahaan kulli way iskaga wada eeganayaan ilmahani oo maaragtay isku nooc bay noqonayaan. kani waxaa loo yaqaanaa identical twinska. marka identical twinska ama monozygotic twinska baa loo yaqaanaa. marka calaamadaha aan u gudagalno marka calaamadaha hooyada hadday uur mataana ay sido sidee lagu ogaani karaa hooyada calaamadaha hooyada uurka mataanka wado sidee aad ku ogaani kartaa marka hooyadii hadday uur mataano ay sido. kow arrinta koowaad oo inaad ogaatid aan kaa raba ayaa ah hooyada calaamadahani badi hooyada way is-shabahaan uurka halka cunug ah iyo uurka labada cunug ah lama kala saari kara, laakiin waxyaala yaryar aad ku kala ogaani karta baa jirto. kow waa inaad ogaatid
waxa loo yaqaano hormoonka HCG. hormoonkani waa hormoon la xiriiro hooyada markay uurka ay qaado wuu bataa jirka hooyada, dhiigga hooyada buu ku bataa. hormoonkani wuxuu noqonayaa increased, wuu zaid buu u badanayaa. shayga labaad oo inaad ogaatid lagaa raba ayaa ah hooyada markii ay maaragtay uurkani oo mataanaha ay sido walac zaid baa ku dhacaya. walacgana wuu ku badanayaa. ma garanayo waad raali noqonaysiin haddii aad lahjada sideed way kala duwan tahay, laakiin anaga waxa uu naqaano waxa waaye walacga waxa uu ka kooban yahay nausea waxa waaye lablabo zaid ah, vomiting, matag zaid ah, sidoo kale waxa uu madax xanuun baa ku jiro walacgani. sidoo kale waxa la xiriiro madax xanuun, waxa kaloo la xiriiro boga in uu ku xanuuno ama epigastric pain in aad maaragtay oo zaid ah inuu kula soo ziyaado, oo laabjeex zaid ah inuu kula soo ziyaado. sidoo kale hooyada calaamada kale ay dareemi karto walacga markaan kasoo tagna ayaa minkii in uu weynaado. maaragtay of course minki wuu weynaanaya, laakiin minki weynaashiis ayaa zaid noqonaya. sidoo kale gabadhii xilliga ay xisaabsanaysana inuu minkii uu ka weynaado maadaama ay gabadhani ay uur mataana ay sido. sidoo kale waxaa gabadhii lasoo ziyaadaya daal joogto ah inuu gabadhii uu lasoo ziyaado ayaa dhacayso. sidoo kale waxaa dhacaysa gabadhii in ay maaragtay naqaskii uu ku xirmo ama neeftii ay ku yaraato. naqaska ama neefta ay ku yaraato maadaama oo maaragtay culays zaid oo gabadhani uu soo korihayo. marka fursadaha haddaan halkaasi ugu soo tago maaragtay calaamadaha oo gabadhii uurkay ku qaadi lahayd, mid kale haddaan in kugu daro gabadhii mataanaha markay sido waxaa lasoo ziyaadaya pressureka in uu ku darsamo ama dhiigkarka sida loo yaqaano in uu ku darsamo oo kor aado. gabadhii waxaa dhici karta in sokorta lagu sheego ama cudurka macaanka sidoo kale lagu sheego. waxyaalahani oo idil waxaa waaye waxyaalaha calaamadaha astaamaha ay ku ogaani karto gabadhani in uu uurisido. ma ahan keliya in aan ku leeyahay calaamadahani in laga helayo gabadha mataanaha sida keliya, maya. calaamadahani waxay noqon karaan inay la xiriiraan uurka haddii gabadha hal cunug ay sido. sidoo kale calaamadahani waxaa dhici karta gabadhii inay maaragtay uurka mataanaha hadday sidana in lagu arko. marka fursadaha ugu habboon oo gabadhii ay uurkani mataanaha inay ku qaadi karto ama fursadaha kala duwan ee gabadhani uurkani ay ku heli karto mataanaha waa maxay? haddii aad horaan usoo dhashay, waxaa waaye haddii aad horaan usoo dhashay ilmo mataana ah ama uur mataana ah haddaad horaan u qaaday. laba waxaa waaye haddii aad maaragtay hidwadaha mataanaha ah hadduu jirkaagu ku jiro hidwadaha mataanaha ah ama hooyada ay kugu dhashay ama adiga ah mataan aad tahay. sidoo kale da'daada haddii ay ka weyn tahay 35 sano. sidoo kale uurkani waa likely waxaa dhici karta mostly nasiib waxaad u lahaan kartaa inaad uurkani mataanaha aad qaado. ugu dambeyntii waxaa waaye haddii aad maaragtay waxa loo yaqaano fertility treatment haddaad isticmaashid daawooyin kala duwan, vitaminada kala duwan oo maaragtay siyaadiyo ogxaanta dhiso, ogxaanta kaa dhisayo haddii aad isticmaashid waxaa dhici karta in aad uurka mataanaha aad hesho. marka asxaabi waxaan soo gaarnay gabagabadii gunaanidka barnaamijka. fadlan meel walba joogtiin channelka kiilowina subscribe, like and share-ka. waxaan idin rajaynayaa sidaas iyo nabadgelyo.